wuxuu igu dhahay arrintan maanta adigu ku haysto sababteeda aniga lahaa man islahayn adiga ayuu kugu dhacayaa waa ogaa intaan ku guursan ka hore ayaa u qabay maxaa la dhihi jiray ay midis ugu bas aniga waa ku isla maqsaxaan anima igu ciyaarsinaysaa misaniyada ay gudisaysaa ma yar runaan ka hadlaya oo ii dhaartay aniga marka adduunka ila wareegto waxa sameeyaa aqooni waayay anoo waxa is arkay asaga ku booday oo kalarkiisa qabtay hadana darbaxsha ugu doomariyay markii aan darbaxshada ku dhuftay hal mar ayuu iska qabtay oo idaba tuuray soo darbiga madax ku diray waana suuxay saacadooyin kadib ayaan soo kacay anoo miir dawalsan markaa soo kacay wax ila jooga oo malaakiliga ayaan marka ay sheekadaas halkaas marayso ayaan istaagay anigoo u dul qaadan la murugada ka muuqatay farxiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kulantu waxaan u wanaagsan daawadayaal kan daawanaysan waa channelka Bidan Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkana subscribe saar, like, comment waxa dhawaan muhiim maanta barnaamijka aniga wado ee ka duway barnaamijyo hore aan soo bandhigi jiray. barnaamijka maanta wuxuu ku saleysan yahay murugo hadday aniga YouTube dhaxweyay ayaan waxaan ku arkay channelka ilaa RTN gabar la mareysanayo oo ilaa kurunaay ilaahay waxa ku dhacay cudurka HIV-ga horta intaan mina aan gelin horta HIV micnihiisu waa maxay HIV horta waa cudur dilaa ah saa ogtiinbo inta badan waxa keena dadka reer galbeedka ayaa wadankan Afrika keeno cudurkaasi dad badan ayaa u dhinteen in badan way qabaan inkastoo laakiin wadamahan hadii aan nahay Soomaali aad ugu yaraa wallahi maanta markaan arkay aad baa ugu murugooday waan qiirooday gabar yar oo had soo baxayso oo mustaqbalka loo ciyaaray had gurjood wax soo baratay gabadha waxay sheegtay inay ka imaatay qaxootiga daab karaan magaalada Ifo waxay sheegtay in macnaha ay Nairobi imaatay si ay u hesho waxbarasho dheeraad ah wadan markay imaatay Nairobi xaaladaha Nairobi kadibna awood meesna awood in macnaha iskuul iska bixiso waxay raadisay shaqo ayadoo shaqo raadinaysa nool dadka macnaha asxaabta ah mise qaraabadooda nool markay shaqo raadis kadib waxay isbarteen wiil oo mid ah aan dhigi karo ninkaas waa nin dilaa ah ay isbarteen ka shaqeeya magaalada Nairobi system magaalada ka jiran fahansan markay isbarteen ayada shaqeysan xasaaba kadib waxa dhacay in ay ilaahay isku calfo oo guri ay leelaan guur kadib waxa dhacay arrinta daanishi ayaa dhacday in ina gabadhi uu ku talalay wiilku uu qoy cudurka HIV sidoo kale uu ku talalay cudurka ayada gabadhi maanta meelaha ay iska wareegsanaysaa asxaab iyo dad kale ay isku nooshay heer ay ina ka caar dadka dhalay iyo ina min walbana ay ka caartay xitaa wajigeeda ay sharax xirto awood waa saatay ina inshaalla magaalada wareegto dadka macnaha ma aan qof macnaha magaalada system fahansan magaalada inkastoo ay ku cusub tahay hadana waxay la kulantay meesha ugu xumeed ay magaalada kala kulantay fadlan horta markuu waxaan ku buugaanayaa aan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan in macnaha horta markuu ayaga naftooda is ilaaliyaan oo ay iska ilaaliyaan waxyaalaha ka jiro hadday tahay gabar iyo hadday tahay wiil Soomaali oo dhamaan waxaan leeyahay waa arrin aad macnaha murugo leh in macnaha wiil Soomaali oo soo baxay amal inuu cudurkaas macnaha ku dhaco mise gabar Soomaali oo kale islaamka oo dhan aan dhahataa ayaan Soomaali ka xidhin waxaan leeyahay dadka macnaha hadduu macnaha cudurkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay Allahumma najina Ilaahay najiya ayaan leeyahay laakiin hadduu macnaha uu ku dhaco saada wiilkan Soomaalida kale to maysan ahayn macnaha inuu garu laashiisa oo Soomaali inuu cudurkaas ku talaalay maysan ahayn وانا أرن أدوح مع عمل إن أجروا لاشة المستقبل المانت حتى إن الغياب إن معنا والد كده أيده وينتهي إن معنا أورجس كل عمل وحكت ضربهم معنا إن لاشة إن أنا نسمار كأيده بعي إن معنا ولك حتى ورد اللي أنت أيده قبض عمل قالوا حشة إن معنا أي يبين كيس حنين نقول ودري هاي مجالس أمريكا أيده إن شرلانة dadka macnaha ay nooshaan aysan dib macnaha kimiis sheegin laakiin uu iska jira dib macnaha in aad laga shaqeeyo amal dhibaato fara badan macnaha hadii cudurkaas ku dhaco la kulmi kartaa marka waxaan ku booweynahay mar labaad mar saddexaad dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay is ilaaliyaan nin walba macnaha gabadha guursana uu iska ilaaliyo tan kaleeto waxyaalaha macnaha khaladaadka amal oo keeni kara inay iska ilaaliyaan inta badan dadka reer galbeedka ayaa keena أنا كمية دينا أنا كمان لا سومالي كمان لا أوضت كلالي كمان لا مسلمين كمان لا ونكسن دت بان بونكسن إن بان بونكسن أنت بان كمان لا أنت حمان أنا وحيلا حمان سمع مسافرين أنا كالله ما أنت والله مركب أنا حتى وديدا أنا وحيك أنا عمل وحيلا أنا يا أكيد وحيلا أنا ونكسن معكي مركب حتى مركب عارف أنا تصف دي ساعة عمل بدأ إذا عمل إنه بركان كاس ما كايش نعمل وحيلا بدنا رياكشن بحين تستي مركب
arrinta ayada waa ka murugada camal waxaa marka aan la camal waxaan bixinaa mise aan ka hadlaa waxaa waaye arrinta ayada in micnaha laga tigtimaado la iska ilaaliyo haddii tii ilaahay micnaha ay ku qabsatane in micnaha aadan faafin oo micnaha qof kale walaalka aada u gudbin camal tan kale waxaan rabaa markaa inta kasoo laabto inaan la hadlo walaasheeda gabadha walaasheeda micnaha cudurkaas micnaha saameeyey waxyaalaha micnaha waxa ku koosgareeya micnaha carada ilaahi subxaana watacaala koosgareyso maadaama adin micnaha aad ku guurisatay guri xalaal ah micnaha hamigi micnaha aalayn haddana aawasay waxaa leeyahay waxaan dunia adduun waaye beriyaa laga tagaya qof waliba micnaha maanta nool beri ma noolo waxaan leeyahay inaa ku samarto camal ilaahi subxaana watacaala ninbu wax arkaysaa maal buu siinaya camal ninbu wuxuu siinaya xanuun weligiis isbitaal ku jira camal ninbaa micnaha weligiis fiqiriskaanaa ilaahi subxaana wataala dadkaas dhan way u sameeyihin hal qof ba ay u yihiin laakiin waxaa jirta iimaankaada ayaa loo tijaabinaya camal samirka aaladaha ayaa lagu tijaabinaya waa inaad samarto ayaa loo baahan yahay sababtoo ah waxaa leeyahay waxan in adiga lagu tijaabinaya camal oo wax aad taani firinaya istaa u dulqaad badan tahay waxaa leeyahay dulqaad fara badan samada cibaadada meeshaada ka sii wad hamigi meesha ala meesha kasoo ilaahay tii ilaahay ayaa ka dhimanaysaa intaasi waxay gabadha ayaan micnaha ku waanayay falfallan daawada dhegeysta gabadha codkeeda iyo waxay ay ka leedahay daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفرحي حسين علي waxaa ku noolahay Nairobi maxaa la dhihi jiray hadaan ka hadlo dhibaatada ay haysato maxaa la dhihi jiray koodeedii hore waxaan ka imaaday qaxootiga Dadaab gaar ahaan Ifo waxaan imaaday halkan Nairobi oo hadda aan ku suganahay waxaan u imaaday inaan wax ka barto kadib markii aan isku dayay inaan wax ka barto maalmo kadib ama bilooyin kadib xoogaa kadib adiga ii suurtagelisay inaan waxbarashada bilowdo anoo sidaas ku jira haddana waxaa isku dayay inaan shaqaysto shaqo raadiyay oo waxbarashada waa ka niyadjabay shaqada saa u raadinaya haddana sidoo kale iyadana waa waay shaqadii intaan shaqada raadinaya waxaa isbaranay wiil oo halkan ka shaqaysto oo halkan Nairobi joogo kadib markaa isbaranay xoogaa wada soconay waa wada sheekaysanay wada sheekaysi kadib markii aan isfahanay waxa ku balanay inaan isguursano familka baray waa isguursanay wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u fiican oo familka xiriirinayo nasiib darro waxay timid guurka dabadii kadib markii farxiyo ay aaday cisbitaal iyadoo faraxsan oo doonayso inay ogaato ubadka uurkeeda Allah ku beeray balse waxaa loo sheegay taabadelkeed oo ah inay qabto cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS dib waxaan aaday cisbitaalka inay isbaara ayaan rabay maadaama ahay qof qabo maxaa la jecel cisbitaalka markaa tagay baaritaan kadib dhakhtarkii ayaa wuxuu ii sheegay arrin aan ka filanaynin runtii aad iyo aad ay ugu xumeed maalintaas wuxuuna igu dhahay waxaad qabtaa cudurka HIV/AIDS runtii waan aamini waayay dhakhtarkii ayaa saa u fiiriyay waa ku qoslay waxaan dhahay adiga maxaa warqad kale miyaad igu qaladaysaa ku dhahay yacni jawaab qof kale u lahaa mayu dhahay soo farxii Xuseen Cali adiga ma tihid haa waay kadib waxaan isku dayay inaan dhakhtar kale aado si aan u soo ogaado arrintan inay beentay inay run tahay dhakhtarkii kale ayaan tagay waa iska baaray wuxuu dhahay haa waa run aad ayaa u naxay haddana niyadeeda waxaa ka dhaadhicay tan inay been tahay haddana dhakhtar kale ayaa tagay dhakhtar oo wuxuu ahaa nin oo isnaqaano yacni aqoons ahaan ugu tagay si aan u aamino kadib dhakhtarkii markaan tagay wuxuu ii sheegay arrintan inay sax tahay runtii aad iyo aad ayaa u naxay hal saac camal ayaa meesha fadhiyay markuu arrinkaas ii sheegay dhakhtarka waxay ku noqotay filimwaa waxayna u carartay hoygeeda iyadoo wajigeeda uu daboolay murugo iyo walbahaar ma aqaan meel aan ka fikiray xataa ma aqoonin anoo yaabana guriga imaaday waa naxay maalinka dhan cunto ma cunin biyo xataa ma cabin ilaa habeenkii kadib ninkii waa wada joognay casarkii wuu imaaday adi maqribadii meelahaas ahayd lama hadlin shibaa ka dhahay anna waxaa islahaa u sheegin arrintan waa ka aamusnaa ilaa habeenkii waa ka qarinayay kadib adi maxaa dhihi jiray waxaa rabo qof aan la wadaago waxaa isdhahay familka u sheeg haddana way ila noqon weysay maxaa dhihi jiray waa fikri hataa xeer waxa ku gaaray inaa isdilo saqdhexe habeenkii ninkeeda ayaa su'aal weydiiyey oo ahayd sababta ay la seexan la'dahay waxay garan weysay waxa ay ugu jawaabto afkii ayaa jubuqda gabay habeenkii dhan saa u fikiray ilaa habeenkii dhan urdu iga soo dhiciyay 7 saac markay ahayd museyga waa wada joogna wiilkii kadib wuu soo kacay wuu yaa wuxuu dhahay maxaa u seexan la'day cawada bas markaas waxaa dhahay waa ka aamusaday kadib haddana wuu ii sheegay maxaa yacni wuxuu i weydiiyey sababta aan la murugeysanahay maxaa dhacay ma familka dhankooda problem ka jira ayuu dhahay maya ku dhahay
وإسحكمي وأشياء runta wixii taa u sheegay sidaas ay soo dhahay mana aqaan habaar ayuu aamusnaa markaas hadana jawaab xataa ma uusan celin uu iska sii seexday asaga wixii waxaan arkay ninkii iga soo horkacay waaya waxa buu aadaa isdhahay gadaasheeda iska fiiri ma joogo waa soo baxay sitin ruuka soo fadhiya u maaday kadib jikada galay shaxa u soo diyaari waa u keenay marka u keenay meesha shax ka cabila wuxuu dhahay soo fadhiiso arrin muhiim ah inaan kala hadlo maxaa la jiray igana raal noqo arrintan waa arrin aad iyo aad weyn maxaa waaya daan waxa islaa waan ku fura inuu dhaho ka sugaa maadaama arrintaas u sheegay furina ka sugaa markaas wuxuu igu dhahay arrintan maanta adigu ku haysto sababteeda aniga lahaa man islahayn adiga ayuu kugu dhacayaa waa ogaa intaan ku guursan ka hore ayaa u qabay maxaa la jiray midis ugu bas aniga waa ku isla markaa saxaande ani ma igu ciyaarsinaysaa misaniyada ay u dhisaysaa ma yarun aan ka hadlaya oo ii dhaartay aniga marka adduunka ila wareegto waxa sameeya aqooni waayay ana waxa is arkay asaga ku booday oo kalarkiisa qabtay hadana darbaxsha uu doomariyay markii aan darbaxshada ku dhuftay hal mar ayuu iska qabtay oo idaba tuuray soo darbiga madax ku diray waana suuxay saacadooyin kadib ayaan soo kacay anoo miir tawalsan markaa soo kacay wax ila jooga oo malaakiliga ayaan marka ay sheekadaas halkaas marayso ayaan istaagay anigoo u dul qaadan la murugada ka muuqatay Farxiya loo sheeg bal ninka ehelkiisa iyo qarabadiisa bal aaway wallahi ninka familkiisa waan aqaanaa maxaa la jiray markuu iga tagay oo maxaa la jiray sidoo iga tagay familkiisa ay familkay la xiriireen markii arrinta familkayga uu sheegay isqabqabsi dheer familku xeereen anaga xataa siday gabadhan ooga mooganeed oo kale ayaa ooga mooganeen arrintaas wuxuu kamaanayeen asagana ilaa hadda taameel kuma sheegno soo kadib ayaga ayaa waxay bixiyeen kii kale raali galin iyo sabeen xir Farxiya ayaa hadda rafaad kula joogtaa gabar kale ee Soomaaliyeed ninkiina wax war ah kama hayso wallahi ma aqaan maalinkaas ayaa igu dambeysay kadibna dib dambe igu ma soo laaban telefoonkiisa markaa waana ma wada familkaada hooyada iyo aabaha u mashmuul sheegtay waan u sheegay waa la wadaagay ayaga runtii aad iyo aad ay u naxeen kadib de waxay sameeyaan ilaa hadda ayaga ma aqaana anigana halkayga ayaan iska sii joogaa waxaan ku sugnaa wallahi walwal iyo walbahaar maxaa la jiray fikir aad u badan stress inkastoo hadda wax tagay aysan tiigsimaad lahayn dhibaatada igu dhacdanaysa waxba laga qaban karin hadda waxaa la joogaa gabar aan qaraabanahay oo Nairobi degan ayada ayaa gurigeeda igu hayso ayada la joogaa intii iyo gabagabada hadda waxaan leeyahay gabadha horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas ka caafiyo intii kale ina xanuunsan islaam ana Allah caafiyo ayaan leeyahay marka maxaa leeyahay mar koowaad maxaa leeyahay mar labaad waxaan ku soo celinayaa oo aan leeyahay oo muhiimada aan video u duuba maxaa waaye dadkan ina uu sameeyay cudurkan waa in ina isfaafin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadartiisa ina ku samran aysan gaarsin walaalkiisa kale oo ina maanta inuu soo gaarsin xanuunkaas waxaan ina murgal amal aad ina xanuun badan qof ku aan amal saameyn farabadan ku yeelan kara meelo badan ina ifan garan karo xalay ina ay ka tiftoonadaan cudurkaasna ay ku samraan amal waxa kale rabaa inaan ka hadlo dhalinyarta ayna sidoo kale meel walba ay joogaan ina ay iskilaaliyaan waxyaalahan ina munaasabka ina ay sameeyeen haddii aad ku cusubtay channelka bidaan subscribe saar like to muhiim wax walbo meeshan inaan soo gaarnay waxaan jecelahay mar walba in wax farxad geliya aan niiso badhigno fadlan share gareeya haddii aad ka mid tahay saaxiib bidaan waxaan intaas inay kale kula fahmaysaa